Madrid waxay haysataa weerarkii ugu cabsida badnaa Yurub, Mbappe, Vinicius iyo Jude Bellingham. Haddana garoonka dhexdiisa waxay u muuqdaan kuwo isku dhex yaacsan, nidaam la'aan ah oo guuldarrayn xanuun badan kala kulmaya kooxaha nidaamsan sida Bayern Munich. Balse maxaa khaldan? Mbappe ayaa noqday keligii taliye burburiyay wada shaqayntii kooxda, mise fashilku waa Galacticos-ka cusub. Waa mid aad u qoto dheer oo ka bilaabatay go'aan qaldan oo uu maamulku gaaray bilayn ka hor. aan isla eegno dhibaatada dhabta ah ee haysata Real Madrid intii lagu guda jiray ciyaar kulul oo ka tirsanay dhamaadka Champions League oo ka dhacday garoonka Allianz Arena. inkastoo ay lugtii hore 2-1 guuldarro kala kulmeen Bayern Munich, Real Madrid waxay la qabsatay xaaladaas 10 sano ee la soo dhaafay. habeenadaas ayaa ahaa kuwa astaan u ah kooxda, waa ciyaaro u qaab dhismeedku burburay, wax walbana ay u muuqdeen kuwa aan macquul lahayn, balse ay aakhirkii guul ka keeneen daqiiqado kooban. waxay u muuqatay inuu yahay habeen kale oo ka mid ah habeenada sixirka ah, gool qurux badan oo laad xor ah oo uu dhaliyay Arda Güler iyo Kylian Mbappe oo gool dhaliyay ciyaartan hoggaanka u dhiibay. laakiin markii ay muuqatay inay guushu gacantooda ku jirto, Bayern ayaa durba maamulka ciyaarta dib ula wareegtay. Madrid weligeed ma helin hanaan sax ah oo ay kubad haysashada ku maamusho, mana aysan isku dabaradin dhanka daafaca. markii ay ciyaartu sii socotayna, daldaloolayaal ayaa sii muuqanayay. ugu dambeyntii, Eduardo Camavinga ayaa ciyaarta laga saaray kaarka cas. xaaladuna waxay noqotay mid rajabeel ah. intaas waxaa sii dheeraa goolal daqiiqadihii u dambeeyay ay kala dhaliyeen Luis Diaz iyo Olise, kuwaas oo soo afshiray rajadooda. markii la yeedhiyey siiriga dhammaadka ciyaartaasi waxay tusaale dhab ah u ahayd xaaladda Real Madrid ee xilli ciyaareedka oo dhan, inay u muuqdaan kuwo guulaysanaya, balse ugu dambeyntii ay ku fashilmeen inay sidaas sameeyaan. hadda arrintu way sii caddaanaysaa. tani ma aha oo keliya koox ku fashilantay hal ciyaar, waxay ahayd xilli ciyaareed dhan iyo guud ahaan ciyaartoyda oo si dhab ah daciifnimadooda bannaanka la soo dhigay. laakiin marka hore waxaan u baahanahay inaan ka hadlo arrinta ugu weyn, go'aanadii guud ahaan burburiyey xilli ciyaareedka. isbeddelka xun ee xilli ciyaareedka Real Madrid kama dhicin Munich, wuxuu dhacay bilayn ka hor markii la diray Xavi Alonso. dad badan ayaa fikrado kala duwan ka qaba arrintan. xilligaas la ceyrinayay, xaaladdu waxaa laga yaabaa inaysan ahayn mid degan, laakiin ma ahayn mid aan la sixi karin. Real Madrid ayaa weli u tartamaysay koobab badan, qaab ciyaareedkooda ayaa isbedbedelayay, mararka qaarkoodna hoos u dhac ayaa jiray, balse weli fursad ayay u haysteen horyaalka maxalliga ah. sidoo kalena way ku jireen tartanka Yurub. waxa ugu muhiimsan wuxuu ahaa in Xavi Alonso uu isku dayay inuu dhiso hanaan qaab dhismeed xeeladeed, inkasta oo uusan dhammaystirnayn, haddana la haajiyo hacad. wuxuu dhiirigelinayay arrimo ay ka mid yihiin kubad dhisidda xakamaysan, boosaska khadka dhexe oo si cad loo asteeyo, qaab dhismeedka weerarka oo habaysan. si taasi loo gaarana, waxay u baahnayd waqti, kalsooni iyo taageero guud. keliya ma aha ciyaartoyda, balse sidoo kale taageerayaasha iyo maamulka. markii uu xilli ciyaareedku socday, waxaa dhashay kaftan la xiriira waxyaabo ay ka mid yihiin Mbappe waa keligii taliye, shakhsi ay dad badan si toos ah ula xiriiriyaan keliya inuusan sabab u ahayn shaqo ka ceyrintii Xavi Alonso, balse inuu si xoog leh ula wareegay wadda kooxda, isaguna go'aamiyey sida ay kooxdu u ciyaarayso. go'aankii meesha looga saaray Xavi Alonso ma ahayn dhammaadka mashruuc fashilmay, wuxuu ahaa carqaladeyn lagu sameeyey nidaam dhismihiisu hadda u bilaabmayay tartiib tartiib. waxay noqotay mid aan la dafiri karin in ciyaartoyda Real Madrid ay dhibaato weyn ka qabaan dhanka eedaabta iyo dhaqanka. hoos imaadka tababare Alvaro Arbeloa, qaab ciyaareedkiisu wuxuu hoos ugu dhacay si la qiyaasi karo. wax soo saarka weerarka ayaa dhacay, fursad abuurista ayaa yaraatay, natiijooyinkuna waxay noqdeen kuwo isa sii bedbedela. dhibaatooyinkii uu Alonso wajahayay ma ahayn tirtirmin, waxaan dhihi lahaa way ka sii dareen. dhibaatada ugu weyn ee kooxdan Real Madrid oo ay dad badani ugu yeeraan boqortooyada cusub ee Madrid ayaa ah in aragti ahaan weerarka Madrid uu yahay mid ka mid ah kuwa ugu tayada badan Yurub. si kastaba ha ahaatee, ficil ahaan waa koox kulansatay xidigo waaweyn, balse aan lahayn nidaam xakameeya. taariikh ahaan, mashruuca Galacticos ee Florentino Perez ujeedadiisu waxayd in la helo xidigaha ugu magaca weyn. tani waxay keentaa faa'iidooyin dhaqaale iyo mid ganacsi, balse abidkeed dhab ahaan ma aysan horseedin hanashada koobab. jiilkii koowaad ee xidigaha waaweyn, markii la keenay Figo, Zidane, koob waa la qaaday, balse waxaa joogay tababare heer sare ah sida Vicente del Bosque. markii maamulku diiradda saaray magacyada waaweyn Ronaldo, Beckham, Owen, waxaa la dayacay garoonka. khad dhexe oo muhiim ah sida Kalidou Makelele ayaa la diray, tababarihiina waa la ceyriyey.
kooxdiina 10 sano ayay Yurub ku dhibtoonaysay. Jiilkii labaad ee xidigaha waaweyn xitaa markii la keenay Cristiano Ronaldo, Kaka iyo Benzema dhowr sano koobabka Yurub waa ku adkaayeen ilaa inta tababare Carlo Ancelotti nidaamka isku xiray mooye. Kooxda hadda ee Mbappe, Vinicius iyo Jude Bellingham waxa laga filayay waa inay awood buuxda muujiyaan, balse xilli ciyaareedkii hore iyo kan haddaba arrintu taasi ma dhicin. Mbappe shakhsi ahaan waa cajiib, 47 goolal iyo caawin 40 kulan gudahood ayuu sameeyey. Ma qabo inuu isagu yahay kaligiis taliye, aadana dusha uma saarayno, balse goolashiisu waxay ku yimaadaan xirfad shakhsi ah ee kuma yimaadaan hanaan weerar oo wada shaqaynaya. Wada shaqayn la'aanta weerarka Vinicius iyo Bellingham kaalintooda way isbedeshay. afka hore uma wada shaqeeyaan sidii hal unug, dhaqdhaqaaqooduna ma aha mid iswaafaqsan. Markii Modric iyo Toni Kroos ay joogeen, nidaamkooda ayaa ciyaarta maamulayay oo u saamaxay weeraryahanada inay horumar sameeyaan. Khadka dhexe iyadoo laga tagayo awoodda weerarka, khadka dhexe laguma dhisin ciyaartoy xakameyn kara xawaaraha ciyaarta. Xavi Alonso wuxuu dalbaday xidigo si fiican u maamuli kara dhexda dhisana ciyaarta, sida Martin Zubimendi oo hadda Arsenal u ciyaara, balse maamulka ayaa diiday. Xidigaha sida Bellingham iyo waxay leeyihiin tayo sare, balse ma bedeli karaan doorkii iyo nidaamkii Toni Kroos. Ciyaartoy badan gaar ahaan Vinicius ayaa si weyn uga cagajiidayay nidaamkii Xavi Alonso. kulankii Bayern Munich wuxuu ahaa tusaale quman oo soo koobaya xilli ciyaareedkooda. Bayern waxay la yimaadeen qorshe cad, kubadda haysasho iyo isku bedel garoonka ah oo Madrid ka soo saaray boosaskoodii. Khadka dhexe ee Madrid ma ahayn mid adag, cadaadiskoodu wuxuu ahaa mid daciif ah. Kala fogaanshaha xidiguhuna waxay abuurtay dhibaato joogto ah. Daafaca ayaa la banaynayay sababtoo ah khadka dhexe ayaa ku guuldaraystay inay si dhaqso ah u soo laabtaan. Mana ahan in Madrid ay si xun u ciyaartay, ciyaartu waxay ahayd mid cajiib ah, balse waa tusaale muujinaya in koox si wanaagsan loo nidaamiyay ay garaaci karto koox ku tiirsan xirfad shakhsi oo kaliya. Ciyaartoyda Real Madrid gaar ahaan weerarka iyo khadka dhexe waxay u dhaqmeen ciyaartoy la buunbuuniyay oo aan edab lahayn, iskuna haysta inay ka weyn yihiin kooxda iyo tababaraha. Maamulka kooxda ayaa ku fashilmay inay taageeraan Xavi Alonso markii uu dalbaday ciyaartoy gaar ah, tababaro dheeri ah, ama inuu ku qasbo ciyaartoyda inay raacaan nidaamkiisa. Hadda taageerayaashii ku faraxsanaa bixitaankii Alonso ayaa bilaabay inay sababtoo ah kooxdu kaliya kama harin Champions League, balse Barcelona ayaa sidoo kale kusii dhawaanaysa hanashada horyaalka La Liga. Haddii Real Madrid ay dhab ahaantii rabto in mashruuca Galacticos-ka cusub uu shaqeeyo, waa inay keenaan tababare aan kaliya xamili karin isla weynida xidigaha, balse hela taageerada maamulka si uu ugu dejiyo xeerar adag oo ay qasab tahay inay raacaan. Funaanado waa la iibin karaa, daawashana waa la heli karaa, balse koobab lama qaadayo nidaam la'aan. funaanado waa la iibin karaa, daawashana waa la heli karaa, balse koobab lama qaadayo nidaam la'aan. Inkasta oo Alvaro Arbeloa aanan dhaleecaynayn, kooxdu waxay u baahan tahay maamule awood u leh inuu kulmiyo xidigaha kana dhaadhiciyo hal ujeedo. Haddii uu noqon lahaa Jose Mourinho oo la sheegay inuu diyaar u yahay, ama xitaa Zinedine Zidane oo qof walba ixtiraam ka muta, isbedel ayaa loo baahan yahay. Xilli ciyaareedkii hore ee Mbappe waxaa lagu murmursiyoon karay la qabsi, balse kan labaad way adag tahay in la iska indhatiro. Haddii sanadka saddexaad uu sidan oo kale noqdo, waxay guuldarro ku noqon doontaa ururka Real Madrid iyo ciyaartoyda ay haatan haystaan. Maxay tahay in Real Madrid ay dhab ahaantii samayso? Ma inay iska fasaxaan qaar ka mid ah xidigaha si ay dib u dhis wada shaqayn leh ugu sameeyaan khadka dhexe iyo weerarka, mise inay haystaan kooxdan balse ay keenaan tababare wax isku xiri kara? Tani waxay noqon kartaa bilowgii burburka Real Madrid. Haddaba daawada muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. Fadlan haddii aadan weli muuqaalka like saarin, hadda saar, oo sidoo kale haddii aadan weli channelka subscribe dhihin, hadda saar.